Wacan wanaagsan daawadayaal. Muuqaalka waxaan kaga hadli doonaa faa'iidada barida idaha iyo xanuunada lagu daaweeyo. Soomaalidu waxay siyaabo kala duwan ugu daaweysaa subagga idaha xanuuno kala duwan waxaana ka mid ah gooryaanka iyo bakteeriyada caloosha, hergebka iyo ifilada, xanuunada lafa xanuunka sida riixa iyo rheumatism-ka, baxnaaninta iyo kasoo kabashada dhaawacyada iyo lafa jajabka, xanuunka shaqosha ama idinyada, xanuunka neerfaha ee sinta ku dhaca ee loo yaqaano sciatic nerve, xasaasiyadda iyo xanuunka neefta ama xiiqda, gaas calooleedka nooca ulcer-ka, iyo sidoo kale dilanka haweenka iyo koriimo la'aanta ilmaha. Waxay kaloo Soomaalidu sheegtaa in raganimada uu xoojiyo iyo in difaaca jirka uu sare u qaado oo wixii jirka liddi ku ah aysan si sahlan wax u gaarsiinin sida in qofka ay qaban weyso daawada suuxdinta iyo wixii la mid ah. Haddaba marka su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay maxaa ka jira in subagga idaha uu daaweeyo xanuunadaasi kor aan kusoo xusnay. Marka hore subagga idaha ee laga shiilay barida in uu daawo yahay waxaa noo sheegay rasuulkeena nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee, waxaana jira xadiis ka hadlayo sida loogu daaweeyo xanuunka neerfaha ee sinta ku dhaco oo dad badani ay ka sheegtaan. Xadiiskaasi waxaa ku shardiyey in subagga idaha uu wax ka taro xanuunkan, in idahaasi la daajiyey caws dabiici oo bannaanka la daajiyey oo aan la siinin waxyaabo la farsameeyey. Waxaa kaloo shardi looga dhigay in markii daaweyn loo isticmaalayo in caloosha oo faaruq ah la isticmaalo weliba subaxii hore. Sababta labadaasi shardi iyo faa'iidada subagga uu leeyahay xanuunkan waxaa la ogaaday mar dhow. Cilmi baarayaal u dhashay dalka Australia ayaa waxa ay qoreen research ay kaga hadlayaan arrimaha soo socda. Barida wanka ama idaha waa sida kuruska geel oo kale, waxaa lagu kaydiyaa wixii nafaqo ah oo hadhow xilliyada abaarta ah uu ka faa'iideysto xayawaanka inuu jirkiisa ku nacfiyo. Sidaa awgeed xoolaha wixii la siiyo ayay keedsadaan. Haddii geeda dabiici ah uu daaqo oo aan la siinin waxyaabo la farsameeyey ama aan la daajin meel wasaq ama magaalada aan lagu korinin, faa'iidadiisu ay ka badan tahay midka lagu koriyey waxyaabaha aan dabiiciga ahayn. Midda kale, sida la wada ogsoon yahay subagga xoolaha waxaa loo qaybiyaa laba nooc. Nooc waxaa la yiraahdaa jirka dhibaato ayuu u leeyahay, waa nooca cholesterol-ka keeno oo la yiraahdo saturated fats. Noocna waxaa la yiraahdaa faa'iido ayuu u leeyahay oo waxaa loo yaqaana unsaturated fat. Sidaa awgeed haddii idaha la daajiyo dhul nadiif oo dabiici ah, subagga laga heli karo barida wuxuu noqon karaa mid si dabiici ku yimid waana unsaturated fat. Waxaana markaasi subaggan ku jirta maaddo la yiraahdo omega. Maadadan weeye waxa jirka faa'iido uu ka helo oo inta aan kor kusoo xusnay ka badanba laga helo. Haddii marka la cuno ama la cabo subagga idaha caloosha oo cunto ku jirto ama lala cuno cunno kale oo dufan leh, waxay ka hortagi kartaa in jirka uu ka faa'iideysto. Waana sababta keentay in marka la isku daweynayo in subaxii hore la isticmaalo, laakiin marka lagu daweynayo xanuunada kale ee jirka la marinayo kuma xidhno caloosha inay faaruq tahay in kale. Maadaama dagaal culus lagu hayay wax kasta oo dufan ah iyadoo laga cabsi qabo cudurka cholesterol-ka, laakiin iyaduna waa muhiim in la kala qaado subagga khatarta iyo midda faa'iidada leh. Waana muhiim in la ogaado subag la'aanta jirka ma shaqayn karaa oo waa muhiim. Sidaa awgeed inaad dooratid midka faa'iidada leh ama aad basatid cunnada laga helo waa lagama maarmaan. Xanuunada kor aan ku xusnay oo ay Soomaalidu ku daaweyso subaggan qaar ka mid ah waxaa cilmi baaris lagu arkay, qaarna waa wax markaasi khibrad iyo aragti lagu arkay. Ma ahan Soomaalida keliya dadka isticmaalo subagga idaha. Subagga ugu caafimaadka badan ee la isku daweeyo waa nooca madaxa madow oo barida weyn leh, seenta gaaban leh, waana wananka u badan dhulkeena. Waxaa waajib ah in cilmi baarayaashu ay sheegeen in subagga idaha uu daawo u yahay wadne xanuunka iyo dufanka xididada wadnaha fadhiisto. Waxaa kaloo la xaqiijiyey waxaa ka mid ah ku daweynta cilladaha ku dhaca laabatooyinka ama kala baxyada, shanqarta ka yeedho kuwa oo ay keenaan rheumatism-ka, tufta iyo riixa. Waxaa kaloo la xaqiijiyey in lagu daweeyo xanuunka sciatic oo aan kor uga soo hadalnay oo lagu tiriyo xanuunada aan kalimaati waxaan ahayn loo haynin, waxayna jiraan markaasi takhaatiir ku daweysa oo ku nool dalka Yemen, Sacuudiga iyo Ciraaq. Waxaa kaloo iyadana la arkay in dadka qaba xanuunka gaaska ee peptic ulcer oo aysan keenin bakteeriyada H. pylori iyaguna in lagu daweeyo oo la arkay in boogta caloosha ay si dhaqso leh ku raysato. Sidaa awgeed waxaan kusoo gabagabeynayaa jawaabteeda in subagga idaha oo la isku daweeyo inuu ka mid yahay
talooyinka caafimaad ee rasuulkeena nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee uu noo reebay, waana arrin sanadooyin badan la isticmaali jiray, waxayna isa soo taraya cilmi baarisyada taageersan isku daweynta subagga idaha. Qaabka loo diyaariyo subaggan ayaa ah in barida markii la shiilo laga sooco subagga cad ee soo hadha, waana midka la isku daweeyo. Siyaabaha la isugu daweeyana waa in la cabo ama la marsado ama la cuno lagu darsado. Haddii aad heli karto wan jabsaday oo baadiye lagu soo koriyey, waxaad dareemi kartaa isbeddel caafimaad adigoo isbeddel ka dareemaya dheecaanada jirka sida dhididka, candhuufta iyo kaadida adigoo dareemaya carafta subagga idaha. Intaa ayaanu kusoo gabagabeynaynaa muuqaalkeena maanta oo aynu ku lafa gureynay faa'iidada, waxtarka iyo sidoo kale faa'iidada ugu weyn ee uu xambaarsan yahay subagga idaha. Soomaalida ayaa inta badan aad ugu badnayn isticmaalka hilibka idaha, iyagoo u sababeeyay in iduhu kiciyo xanuuno kala duwan maadaama cimilada dalkeenu ay u badan tahay kulaylaha. Hilibka iyo subagga idaha labaduba waxaa la sheegaa in haddii lagu isticmaalo meel cimiladeedu ay kulushahay uu halis gelin karo qofka caafimaadkiisa, isaga oo dib u soo celinayo xanuunadii hore ee qofka uu jirkiisa ka bogsooday. Si kastaba ha ahaatee, maadaama faa'iidada subagga idaha ay aad u badan tahay, Soomaalida ayaa waayadan dambe aad u isticmaalaya. Soomaalidu waxay ku leeyihiin bulshada Soomaaliyeed taariikh dheer iyo qiimo dhaqan ah hilibka idaha, balse waxaa jira dood dheer oo ku saabsan saameynta caafimaad ee ay leedahay hilibka idaha. Haddaba, sababta Soomaalida qaarkood ay uga dheeraadaan hilibka iyo subagga idaha: tan koowaad, cimilada kuleylka. Neefka idaha waxa uu leeyahay baruur culus oo jirka ku dhegta, taasoo marka la cuno ku darsata kuleylka iyo tamarta badan ee jirka. Sidaa darteed, dadka qaar ayaa dareema in ay ku cuslaato xanuunadii hore ee jirka ku jiray. Waxaa la aaminsan yahay in cunista hilibka iyo subagga idaha uu kicinayo xanuunadii hore ee qofka ku jiray sida madax xanuunka, dhiig karka, macaanka iyo xanuunada caloosha. Hilibka idaha waa mid dufan badan oo aad u culus, sidaa daraaddeed dadka leh xanuunada wadnaha ama cadaadiska dhiigga waxa ay markaasi mar walba la sheegaa inay ka fogaadaan. Haddaba, waxa uu xoojiyaa lafaha iyo kala goysyada, waxa uu kor u qaadaa awoodda ragga, waxa uu dejiyaa caloosha marka lagu daro cuntooyinka qaar. Waxa uu leeyahay fayowqabi dhanka jirka dabiici ah oo jirka ka caawiya daalka iyo tabar darrada. Haddaba, Soomaalida ayaa mar kale aad ugu soo laabanaya isticmaalka hilibka iyo subagga, waxayna arkeen in kasta oo uu leeyahay culeysyo caafimaad, haddana faa'iidadiisa jirka iyo tamarta uu bixiyo ay ka badan tahay khatartiisa, gaar ahaanna haddii loo isticmaalo xaddi aan aad loo badinin. Haddaba, hilibka iyo subagga idaha waa cuntooyin hodan ku ah dufan, tamar iyo nafaqooyin badan, balse ma aha qof walba waa in ay u fiican tahay qof walba ma la sheegayo. Qaar ka mid ah dadka ayaa halis caafimaad ku geli kara haddii ay cunaan. Subagga iyo hilibka idaha labaduba waa dufan badan oo kordhiya kolestaroolka, waxay sababi karaan cadaadiska dhanka dhiigga oo kordha iyo khatar in xididdada dhiigga cidhiidhi ay noqdaan. Dadka qaba macaanka iyo sonkorowga, isticmaalka hilibka iyo subagga dufanta badan waxa uu kordhin karaa caabinta insulinka. Waxa kale oo uu dedejin karaa dhibaatooyinka macaanka sida dhibaatooyinka xididdada dhiigga iyo kelyaha. Dadka qaliinka lagu sameeyey, waxaa la sheegaa in dadka qaliinka ku dhacay, gaar ahaan caloosha, beerka, kelyaha ama wadnaha, aysan ku habboonayn in ay isticmaalaan subagga idaha. Sababta ayaa ah in dufanka culus uu ku adkaado in jirka uu dheefsado, taasi ama dheefshiidka uu shaqeeyo, taasi oo dhaawici karta bogsashada ama dib u dhig ku samayn karta soo kabashada. Dhakhaatiirta badankood waxay ku taliyeen in dadka qaliinka ku jira inay cunaan cuntooyin fudfudud oo aan dufan badan lahayn. Dadka cayilka qaba, dadka la ildaran cayilka ama buurnida zaa'idka, hilibka iyo subagga idaha waa tamar iyo dufan badan, taasi oo ka sii dari karta cayilka. Cayilka wuxuu sababi karaa cudurro badan sida dhiig karka, wadne xanuunka iyo sonkorowga. Dadka qaba cudurrada dhanka caloosha, subagga idaha waxa uu adkeeyaa dheefshiidka. Dadka leh gastriga, boogaha caloosha ama calool fadhiga joogtada laguma talinayo inay si joogto ah u isticmaalaan. Inkastoo la sheego in subagga idaha uu ka qayb qaato in uu qofka ka bogsiiyo nabarrada caloosha, gaar ahaana ulcerska iyo cudurrada kala duwan. Carruurta aadka u yaryar iyo dadka waayeelka ayaa labaduba loogu talagalin inay si aad ah u isticmaalaan subagga idaha. Carruurta yaryar dheefshiidkoodu weli si fiican uguma habboona cuntooyinka culus. Waayeelka qaarkoodna waxay leeyihiin xanuuno la xiriira dheefshiidka iyo wadnaha, sidaa daraaddeed isticmaalka subagga waa in aad loo xadido.
Inkasta oo hilibka iyo subagga idaha ay leeyihiin faa'iidooyin badan sida xoojinta jirka, tamarsiinta, kor u qaadidda awoodda ragga, haddana waxaa jira kooxo dad ah oo aan ku habboonayn isticmaalka hilibkaasi oo qeybahan aan ku soo eegnay. Haddaba sida ugu fiican waa in la isticmaalaa xadid kooban iyo talo dhakhaatiir oo la isticmaalayo haddii qofka uu leeyahay xaalad caafimadeed oo gaar ah, si uu isaguna uga faa'iideysto ama uga fogaado haddii dhibaato caafimadeed uu ku keeni karo isticmaalka subaggaasi. Muuqaalkeena maanta intaa inoo joogo. Intaynu muuqaalkiisa xiga maalinta berri dib aan hawada ugu wada kulmi doono, fadlan waxaan idinka codsanayaa in subscribe aad noo saartaan channelkan, like gareeya muuqaalkan, u share gareeya asxaabta kale ee doonaysa in muuqaalkan ay wax uun ka faa'iidaan iyo muuqaalada dhammaan halkan ku jira. Waad mahadsantihiin.